kenyay wuxuu kadabkaagu keligaha daldalo degdegin kibirdeeray maamadu ubadkaha howdada utashada kenyay ku tasho saadaq leyrshe soo dhawow eedo labadeennuba wadani baynunaa wadaniyadan ka hadla anugu qof allaale iyo qofkii dhibaato u geysanaya soomaaliya anaa u taagan idinkuna hawshii caadigahayd aan isla lahayn sii wada anna qarankaan idinku maqnaa kumaandoos baa u kacay lagu dubtaa la qaybsaybe horaaba la kala qaybsadee hawada maxaa lagu dubanayaa jaan boqolaa qaadatay imaaraad iyo kenya iyo maxaan ku idhahdaya iyo balaayaa wada qaybsatay gaska geli inaad ku riyootay been inaad ku riyootay been soo dhawow saadaq leyrshe cabdi caliyare waan ku soo dhawaynayaa inta gacaliya naayadadeerkaydhalyow soo dhawaada yaa kale wiil wadani soo dhawow wiil wadani ow soo dhawaada qaran difaac waddan difaac diin difaac dad difaacdan ku jirnaa dalkayaga inaan difaacano weeye no sleep anybody Somali okay heestii aadka u qiimaha badnayd halkaasay iigu dhammaatay waxa weeye uun hadda ka hadlahayaa marka ugu horreysa waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta idaafaha caalanka ka joogto aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام وحن لا يهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أخيارا وسلم تسليما كثيرا بعد السلام وحن لا نهي أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق حسبنا الله ونعم وكيلا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى الظالمين تعنو قدري إلهي يا ربك يا نهانوني ميل كستو أمد الصومالية تشوكتو هي ميل كستو أمد إسلام كسنقاه تشوكتو إلهي سبحانه وتعالى هانوني حقها كدو وتضى مستقين كالله هنا كدو دنبجن يكي والد كان بالله ضعفو انت اللي ما تي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستو والدينتو دي الله ونحريستو مؤمنين تيودان الله ونحريستو قبر عذابك إلهي هو نحريستو قبرك الله واسعيو قبرك الله ونوريو
kitaabkooda midigta allaha ka siiyo maytideennii oo dhan ka awowa xagee ilaa maxaan ku leedahay awowa aadam ka soo bilow waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu hanuun iyo caafimaad iyo mataqaan dambi dhaaf iyo nabadgelyo xasilooni leh idin siiyo quluubihiinna allaha isku soo duwo qaladka iyo mataqaan madmadowga idinku dhex jirana allah idinka sifeeyo wixii hanuun u qoran yahana allah soo hanuuniyo waxaan hanuun u qorayna surqun baan leenahay meeshoodiyo meel ka dheer ilaa hanuunba uma qoree waxaan ka hadlahayaa maanta laba mawduuc waad arki doontaan haddii alla idmo walow ay waadax tahayoo dee dadkoo dhan ogyo waxaan anigu ogahay wax soomaalidu og tahay weeye laakiin waxa waajib ina ku ah innaga inaan isbaraarujinno inaan isxasuusinno inaan iswacyigelinno inaan isku digno meel kastoo dagan inaannu maaragtay aan dadka u sheegno oo iyagoo og aan ku baraarujinno si maaragtay ay aad ugu dhabagalaan oo khataraha ay ku dhex jiraan ay maaragtay uga feejignaadaan hadday dibadda joogaan iyo hadday gudaha joogaanba soomaaliya halis bay ku siganta dibaddana dhibaataan ku qabnaa dhibaato culus baan ku qabnaa waxa weeye nalkama jecela waxa weeye annagii baan isku dubaridnayn annagii baan mataqaanaa sunnaheenni iyo diinteenni naga muuqan annagii baa tafqalaalaysan annagii baa isjaajuusayna annagii baan community lahayn annagii baan iska warqabin annagii baan qabiil ku joogna bannaanka waddan kasta ee dibadda soomaalidu qabiil bay ku joogtaa oo qabiil bay isku necab tahay oo qabiil bay iskula socotaa oo iskuma duubna oo iskama warqabto oo dowladaha ay la joogaan community wax uga soo goyn kara oo xaquuqdooda uga raadin kara ma laha reer walba community la yimaada markaasaa dowlad walba gonofka ku dhifata ma canada ma america ma england ba ma yurub oo dhan ba ma australia gonofka lagu dhiftaa sababtoo ah caalamka ilaahay sharciga u yaallaa waxa weeye macakii diinteenna u yaalla communitygii meel wada jooga oo isku isuruba inay samaystaan hal nin oo liidhar ah oo afhayeen u ah oo ay wax walba uga dambeeyaan isaguna cadkooda u soo dhiciyo nala kuma arko america waa 22 canada waa 22 england maba lahaaba community oo dhanba mala reer walba iskiisu u qoran yahay australia waa 17 new zealand waa 6 maxaan ku idhaahdaa meel kasta oo yurub ka mid ah sweden norway maxaan ku idhaahdaa denmark holland kulli hal community oo iswata oo israacsan oo soomaali ah oo qadiyad soomaaliyeed isku raacsan maba jiraanba masaajidyadii bay xataa isku baabi'inayaan qabiil oo hadda gaaladii la wareegaysaa ilaa awalba gaalada masaajidyada dhismahooda gaaladaa ku gacan siisay oo ay inta ula tageen culummadu lacag ka soo qaateen marka waxa weeye dhibaatadu meel walbay taallaa waddankiina waxaa ka socdaa xasuuq dacyarta baa ka socda cid waaweyn dadka waaweyn cid rabtaa ma jiro waxaan ku hormarahaya tan ciyaalka ama dhallinyarada oo waddankii dibadda xaasidnimaa baabah looga dhiga dibadda carruur nooma joogto dhowr jeer baan ka hadla haweenkii iyo nimankii carruurta dhalay oo waalidiinta ahaana uma dhug laha odagiina siyaasad iyo wuxuu ku fogan yahay inuu xamar iyo soomaaliya oo wuxuu dhaco ka doonto habartiina single mother bay awalba ahayd iyadoo daashay oo baaba'day oo raabuqday oo hoogtay oo ba'day oo nolosha ku dhimatay oo carruurtii maare u weyday oo carro qallafsan joogta bay haddana waxay samaynaysaa taleefanno iyo mataqaan ayuuto iyo naago la tartan iyo dahab ku tartan iyo aqal sacuudi carabiya laga keenay ku tartan ama dubay iyo xad bay ku mashquulsantay carruurtii saasay dhexda uga baxday shilinna ma helaan waa ka aradan yihiin lacagta weelfeerka dowladdu siiso ayuuta lagu galaa waa ka aradan yihiin waa maxaan ku idhaahdayay waa ka baahan yihiin waxa weeye digir iyo beriis loo kariyey bay iskuulaadka u qaataan ama buskud bur iyo ukun ay ku qalaaqday carruurtii saasa marka ay ula wareegaysaa gaaladu hadday la wareegta gaaladana waalidkii iyo soomaalida iyo communitygooda u bandhigay oo u baylihiyey oo mataqaana aan xafidan dadka lala wareegayo carruurta lagala wareegayo waa dayac ka yimid waalidka cidna lama gardarraysanayo haddii lagu gardarraysanayana si dahsoon oo aadan garanayn baa loo gardarraysanaya bareere ma jidho bareere dadkii baa carruurtoodii nacay oo community aan lahayn oon isku xirayn oo jaahil ah
oon waxba ka warqabin waxaa loo baahan yahay marka dadka waxaan la hadlahayaa gudaha dadka dibadda waa noocaas be careful caruurtiina la saaxiiba waa dadka dibadda caruurtiina la saaxiiba caruurtiina waxa lagu shubay ka shuba caruurtiina soo dhoweeya caruurtiina saaxiib la noqda caruurtiina waxa maanta lagu soo shubay weydiiya kalsooni ka raadiya saaxiib la noqda ha canaananina ha ku qaylinina ha dilina best friend la noqda caruurta markaad idinku saaxiib la noqotaan meel kastoo ay jecel yihiin adu kaxaysaan wax kastoo ay jecel yihiin ku sibood garaysaan oo aan ahayn dee wax qalada oo ansha xumo ah oo dhaqan xumo ah oo diin xumo ah oo akhlaaq xumo ah oo mataqaana diinka baxa oo fasaad ah oo kalaab ah oo wax darana oo shaneebooyinka la ado caruuraha lagu lumiya oo dariiqyada communityga caruuraha ah oo iskooleyda ah ay free aduga dhigta maaha gacanta ku qabso meel allaaliya meesha banooni hadduu raba adigu gee hadduu raba maxaa ahayd dabaaga adigu gee hadduu badda raba adigu gee hadduu mataqaana shaneeba raba la dhex fariiso guriga hadduu kaa diido ou dho shaneebaan rabaa tag raac la dhex fariiso markeed kalsooni baad ku helaysaa sir walbuu kuu sheeganayaa saaxiib buu kula noqonayaa wax walba habigiisa haddaad u raacdo oo aan ahayn waxa xun waxa wanaagsan ah oo uu ku farxahayo waa yar yahay maskaxdiisaa soo koraysee raac adigu meel walba u raac caruurta intaad guryaha ku xidhaan baabuurta aad qaadanaysaan oo aroosyada iyo baadhiyada aadaysaan haweenka soomaaliyeedoo diyaasbarada ahow joojiya caruurtii hoostiina ay dayacbaa kala baxay shaydaan baa kala baxay shaydaanu insi baa kala baxay dowlad caruur ka dhacda dad ma jidho waxa weeye iyagii baa dayacaya dowladduna sooshallay u leedahay hay-ada dhanbay u leedahay ilmaha iyadaa biilata iskuulka iyadaa ka bixisa caafimaadka iyadaa ka bixisa guryahay degan yihiin dowladdaa siisay yaa biilkooda dowladdaa bixisa wax walba dowladdaa ka bixisa marka maadaama caruurtii lagula korsanaayo waajibka waalidnimo aad leedahay ka soo bax xanaanadii caruurta ay kugu lahayd ka soo bax waalidnimadii ka soo bax xushmadii diinbarkii akhlaaqintii edbintii dhaqan wanaaggii aad baraysay muxubadii wax walba ha qaaladuba ilmahooda maydhaali bay ku hayaan markaasay waxay dhahaan I don't want you I don't want you I don't want you I hate you bay ku hayaan my darling my sweetie my son my girl bay intaa ku hayaan kama aajisayaan adoo diin leh oo iimaan leh oo islaam ah oo ilaahay ku furay caruurtaada inaad hanato noloshooda korintooda akhlaaqdooda dhaqan wanaagooda diintooda wax walba inaad hanato adoo ilaahay kuugu talagalay xaggee joogtaa marka adiguna maydhaali maa dhahdi hooye macaa ya hooye macaa I love you waa idin jecelahay ilaa igama kiin qaado maxaad u baahantihiin waxaad jeceshiin aniga ii sheegta anaa idiin samaynaya meeshaad jeceshiin anaa idiin raacaya wax allaaliya waxaad rabtaan diyaar baan idin la'ahay kalsoonida ilmuhu hadday heli lahaayeen balaayada suuqa joogtaa gacanta kuma dhigteen gaangistarna ma noqdeen alcohol iyo balaayo iyo daraagna lama bareen gacantiinaba kama baxeen waxaa idin heshay jaahilnimo iyo isla weyni sanuudda caruurta aad ku qaadataan oo ayuuto aad ku gashaan ood intaad dubay iyo la wareegaysaan meel daran ya baa idin hoddo caruurta idin dhaafisay dadka diyaasbarada waxaan leeyahay caruurta gacanta ku dhig oo caruurtiinna edbiya oo caruurtiinna la socda intaasaan uga baxaya diyaasbaro gudaha dadka jooga hamayn iyo maalin caruurtii waa la daldalaya hamayn iyo maalin caruurtii waa la daldalaya kelyihii baa lagala baxaya meeqay ku socotay mataqaan soomaaliya waxay ku bilaabatay caruurta la hadahayo oo kelyaha laga guranayo 2007kii bay ku bilaabatay 2000 gobolada waqooyi bayna ku hormadhay gobolada waqooyi bay ku hormadhay bartamaha Puntland iyo bartamahoo dhan bay soo madhay xamar bay ku soo baaratay xamar bay ka gudubtay intii gobol oo kala ah oo ilaa koonfur ilaa Kismaayana cagtay maris xataa Gaarisa laga daldashaa Siyeelow baa laga daldashaa Mandheera baa laga daldashaa Jigjigaa laga daldashaa Dhobley baa laga daldashaa waxa meel aan laga daldalan caruurta Soomaaliyeed ma jiro Jabuuti baa laga qaataa oo Ismaaciil Cali Geelle isku sheegayo dawlad 30 sano gacantiisa ku jirtay male caruurtii waa baylah dhalinyaradii waa baylah Soomaaliya oo dhan ha kala reebin shantii Soomaaliya caruurtii waxa laga daldalayay ilaa 2007kii haye 20 iyo dhowr sano caruurteena la guranaya kuwii waa weynaana waa nimanka maxayto siyaasiyiinta gobolada haysta iyo kuwii hore oo haystay xamar wixii uu maamul hayo oo dhan
iyo wixii madax sheeganayoo dhan baa haad kiciyey waayagii tahriibka wada aaday oo ku dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo maalintuu soo fariistay kursiga baa ugu dambaysay wiil tahriiba iyo gabar tahriibna wixii dee sii socdo ilaa muxuu ahayeta etoobiya iyo suudaan iyo libiya iyo wixii u sii socday oo already waddanka lacagta kala baxay maahane carruur kale ma tarhiibin maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii uu soo doortay xasan cali khayre markay qabsadeen carruur dambe ma tarhiibin war runta ilaahay baa kugu jecel runtaa la sheegaa war qof nabcaysiga iyo qof jeclaysiga iyo qof faanka uusan lahayn dusha looga ridayo ha layska daayo xaqa ilaahay ku addima qof walba wuxuu mudan yahay ku sheega boqolaal qalad waa galeen xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo waayo waddan dhintay oo la kafnay oon godkii weli la gelin bay yimaadeen kafintii bay ka fureen waa istaajiyeen cagihiisiibaa qofkii ku socda laakiin meeshii la rabay ma gaarin mucaarad baaba u diiday inuu gaaro niman cadow ah oo cadowga u shaqeeya oo mucaarad la dhaho baaba u diiday inuu cagaha waddanku ku istaago ilaa yoom alhaadaana waad ujeedaan waxay samaynayaan ilaa yoom alhaadaa baarlamaankii bayna maqlayn dastuurkii bayna maqlayn madaxweynihii bayna maqlayn waxay maqlayaan ma laha imaaraad iyo kenya amarkooda keliyay ku socdaan ayaga danahooda waxay ka arkaan keliyay rabaan gobolladii waa baaba'een waxa weeye halkaas iigu kaaday arrinta noocaasa tahriibkii carruurta maalintaasaa u dambaysay maxaa bedelay marka kuwii yaryarka ahaa oo da'dii baaba'day oo tahriibka iyo barcodbadeedka iyo al-shabaab iyo adduun lagu baaba'shay caalamka ilaahay ku wada xiran intay soo fureen maaha intii kale waa buuxda meel ayna ku xirayn ma laha iyaga laftirkooda markuu khilaafku dhex galay dadkay soo furahayeen joojiyeen farmaajo iyo xasan cali khayre markay iskhilaafeen oo sanad ka hora bay joojiyeen ka hor waxbay qaban jireen oo dadka waa soo daabuli jireen thank you baan leenahay abaal baan ugu haynaa ciyaal badan oo dhowrku inay noo soo daayeen khayr allah siiya inta joogtana waa doonaynaa inay soo daayaan inta xiranna waa doonaynaa inay soo daayaan meel walbay ku xiran yihiin ciyaal 450 baa sacuudi carabiya ku xiran oo rag iyo dumar dowladdu inay inta u tagto u golo fariisato oo wafti u didho ay ka soo daysaan doonaynaa yaman bay ku xiran yihiin walow yaman bala isku haysato meel la geli karaba ayna ahayn madaxweyne caadiyaho iyo dowlad caadiyo dhisanna oo loogu tago loo galo fariistana ma laha waa jabhado baa isku dirirahaya iyo imaaraad iyo sacuudigu ka dambeeyaanoo baaba waddankaas waa baaba haddana waxaa la rabaa in la baabi'iyo corner of africa soomaaliya etoobiya jabuuti elatareya cagta in la mariyaa la rabaa iyagana oo sida imaaraad iyo bahalkii intay mariyaan sacuudi carabiya sida yaman iyo maxaan ku iradaa libya in laga dhigaa la rabaa soomaaliya awal bayba ahayd awal baaba anagu ahayno hoognoo ba'no 30 sano cadow isugu kaaga tagaye reer galbeed oo dhan carab oo dhan afrika laftirkeeda waa isugu kaaga tageen laakiin annaga ilaahay baa wakiil noo ah ilaahay baa na ilaaliya dad rabbi ilaaliyaanu nahay rabbi baa na ilaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ku xirannahay dad islaam oo sunniyaan nahay cid ma dulmino cid duulaan kuma nihin cid waddankeed ma aadno jaajuusnimana uma aadno xuduudahooda iyo waddankooda inaan qabsannana oo boobnana uma aadno waddanka boobka dadka wada waa ku hungoobahayaan waxa weeye marka hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed iyo madaxda dowladda soomaaliyeed ama maamul goboleedyada waxaanu u sheegaynaa carruurtiin hoostiinaa lagala baxay carruurtii xarunta u weyn carruurta lagu qalaa xamar bay ku taal weliba xamar 2 xarumood baa ku taal midna xamar weynay ku taal midna cabdicasiis midna hodan waaba 3 afgooyay ku taal markay ku taal waxay ku taallaa baydhabo waxay ku taallaa beledweyne waxay ku taallaa jawhar waxay ku taallaa meesha la yidhaahdo iken dhuusamareeb waxay ku taallaa kaalkacyo iyo garowe iyo boosaaso laascaano hargeysa burco boorame jigjiga meel ayna ku olma leh magaalo kasta ama gobol walba magaalo madaxdiisa waxaa ku taalla xarun weyn xarunta maxaa ku qoran boorka ku qoran waxa weeye NGO hebel Soomaali baa magacu ku qoran magac gaala kuma qorra magac arbeed kuma qorra magac afrikaan kuma qorra qaaligu basharkan ku dhaartay qof Soomaaliyeed ama rag ama dumar baa ku qoran foundation hebel fund magac intay la baxda fayga maxaan ku iraahdaa samafala hebel NGO hebel waxaasoo dhan baa ku qoran bal idinku u fiirsada Soomaaliyay dhalinyarada Soomaaliyeed tijaabiya gobol walba inta tagtaan gobol walba ama taleefon u didhaan NGO-ga maxaa ku qoran dhah magac Soomaaliyeed baa ku qoran oo falsa
magac baa loola baxaya waa anigoo iri oo kale waa anigoo iri samafale booska maxaan ku idhaahdaaye bursaala samafale booska bursaala dee maxaa laga garanaya samafale booska bursaala maxaa ka garanaysaa ngo booska bursaala ngo booska gaalkacayo ngo booska boosaaso wax cid ka garanaysaa ma jirto waa qof samafala ah waa qof dadka taageeraya waa qof xaquuqul insaan mar sheeganaya marna sheeganaya inuu tabarucaad dadka u fidinayo wax ka jira ma jiraan kalyuu guraya wadnu guraya beer buu guraya gabdhaha xataa waxaa lagala baxaa baa la yidhi minkaa laga daldalaa indhaha la daldalaa meel la dhaafo xubin bini aadan oo la dhaafo lafaha xataa waa la guraa lafaha dad lafahoodii budan noqdeen oo burbureen oo aan lafa lahayn baa inta la qaato la gelinaya ama loo shiidaya lagu shubaya kalli waa ismeer baartay ummadda soomaaliya waxaa laga bilaabay dadkii waaweynaa oo dhallinyarada ahaa waa lagu guulaysan waaye waa fashilantay yaryarkii baa loo soo dhigtay 2007 up to now war waa meeqa sano 13 sano la daldalaya dhallinyaradii soomaaliyeed magaalada xamar haddaad ka baxdo oo ilaa iyo aad rabto hargeysa inaad aadid oo baabuur raacdo baadiyahaad ogeydeen oo xooluhu waddada labadeeda geesaa u daaqhayeen carruur yaryaru ilaalinaysay kuma arkaysid xoolaada ku arkayn dad baada ku arkayn dad degan oo guryo kama muuqdaada ku arkayn waa cidla labada dhinacba waddadu xamar ka soo bilow ilaa hargeysa teelteel baad ku arkaysaa qoys xaggee ummaddii soomaaliyeed markii ugu horreysay baadiyii xoolihii baa laga dhameeyey dhirtii baa la jaray xoolihii waxay daaqeen baa waayeen waa baaba'een xoolihii iyo baadiyihii markii la cunay oo baddii la kireeyey oo gobol walba baddaysa kiraystay somalilan kiraystay oo puntland kiraystay hobyo ma kiraysan maamulka hobyo waa xalaal hal meel uu bixiyey male hal meel oo uu kireeyey male hal meel oo uu gaalo kula heshiiye male waa maamulka waxaa idinka fiican galmudug war maamulka galmudug waa waddani war waddankiisii cadow uma dhiibin somalilan iyo puntland iyo jubbaland badihii iyo dekadihii baa la dhiibay midna kenya loo dhiibay iyo imaaraad baa jubbaland haysata puntlandna waxaa haysata maxaan ku idhahdaa imaaraad iyo bala kale oo qarsoono maxaa la dhahaa guruubka ugu khatarsan adduunka guruubka adduunka ugu khatarsan oo kanada soo cayrisay oo amerika soo cayriyey oo carabe ma jiraan oo walba carab agab laga dhameeyo aadi mayaane england iyo yurub iyo reer galbeedkao dhan soo cayriyeen oo wantad caalamka ka ah oo la yidhaahdo black water oo saldhigoodu uu yahay dubai magaalada dubai baa lagu wareejiyey puntland خلاص انكلا ونودم waxa weeye marka shacabka Soomaaliyeed haduu maamul yahay haduu dawlad yahay haduu shacab yahay haduu waalid yahay haduu ciidan yahay haduu muxuu ahaay degmooyinka ay yihiin minashiibiyada magaca aad u taqaaniin minashiibiyan anagu dhii jirnay waa kansalka magaalada maxaa la oran jiray maxay dhahaan hadda ma garanayo annaga waxaan dhihi jirnay duqa magaalada minashiibi waa minashiibiga hadda cumar finish oo kale magaalada xamar degmooyinkeeda 15 abuu xukumaa waa kansal kawsar miyaa la dhahaa waxaa la oran jiray duqa magaalada xarunta minashiibiyada waa dowladda hoose governor waaye waa dowladda hoose dowladda sare iyo dowladda hoose waddanku u qaybsan yahay waa dowladda hoose waa governor kasta xil baa ka saaran dadka iyo dalka iyo diinta cumar shiinif waa aamusan yahay carruurtii baa korkiisa lagu daldalanayaa xamar iyo agagaarkeeda ilaa balcad ilaa jawhar ilaa maxaan ku idhahdaa cadale ilaa inta u dhaxaysa ilaa afgooye ilaa maxaan ku idhahdaayey qoryooley ilaa marka ilaa intaas waxay hoos imaanaysaa ninka la yidhaahdo cumar finish dee sharcigii horaan ku socda anigu sharciga baadalkaa oo xasan sheekh sameeyey kuma socdo sharcigii hore oo dowladahayagii hore maxamed siyaad barre u dambeeyey intaas xamar bay cumar finish bay hoos imaanaysaa magaalada xamar buusan ka warqabin oo warshada ka dhisan yihiin carruurta lagu qalo oo ismeer baarti ah cumar finish xilka madaxweynuhu u madaxaaday waa qalab wasaaradda warfaafinta ayaduna xilkeedii ma ay gudan xamar baa carruurtii warshada uga dhisan yihiin ismeer baarti ah oo lagu qalo kama warqabto ayaduna waa finish labadaasba horta in la rugseeyo waa
down baan leenahay labadaba caruurta hoostoodii baa lagu daldalanaya booliska amniga agagaarka magaalada xamar ama barandir oo dhan barandir intaa sheegaa la isku dhahaa adala ka soo bilow marka waxaa ku xijaysaa jawhar balcad jawhar ma ahane bahalka ikan afgooye ilaa iyo maxaa qoryooli ilaa iyo maxay marka ilaa intaas oo dhan barandir baa la isku dhahaa xamar kaliya ma aha banaadir soomaali juhulaa open the eyes xamar kaliya ma aha banaadir gobolka banaadir intaasoo ku fadhiyaa oo miisaankeeda wataa xasan shiikh baa kala qaybqaybiyey oo qaar wuxuu raaciyey baydhabo oo qaar wuxuu raaciyey beledweyne oo qaar wuxuu raaciyey adalaguuba gooyeyba oo mataqaanaa afartan koonu u kala jarjaray gobolkii banaadir xamar kaliyuu soo kooba xasan shiikh baa soo koobay iyo xukuumaddiisii guracnay okay cumar finishow maxaad meesha ku haysaa waa hadday boolis yihiin waa hadday yihiin governorka xamar waa hadday yihiin maxaan ku idhaahdaa wasaaradda warfaafinta iyo mataqaana muxuu ahaye hanuuninta dadweynaha waa hadday yihiin booliska amniga ama CID ha ahaado ama booliska caadiga ha ahaadee oo intaas xukuma wax caruurtii ka warqaba iyo wax wadankii ka warqaba iyo wax amniyo aad haysaan midna ma laha waxa weeye qofku markuu shaqada loo doorto uu gabo غير مسؤول baa la dhahaa غير مسؤول baa la dhahaa meeqa hadda la bedelay meeqa la bedelay waxa la bedelay ilaa hadda shan buu ku yahay malaynaya gobolka banaadir shan buu ku yahay Umar Finish baa shan ku ah waxa ugu horeeyaan malaynaya tarsan nin libaax u ahaa ninka bilaasha looga qaado waxa ku xigay ninka la yiraahdo iikeen maxamed hee taabad ma aqaan wax quraan oo qarsoon buu sameeyo anigu aan garan karin oo sheegi karin waxa ku xigay ninkii la oran jiray iikeen engineer Yiriso boqolkiiba boqol ninkaas cadaalad aha ninkaas Soomaali aha ninkaas sharci yaqiinay ninkaas wax bartay ninkaas dadka wax ugu yeel ninkaas gobolka difaacayay kas iyo mag bay dawladdu dishay al-shabaabna ma dilin qabiil reer hebel la dhaho meel kale ka yimidna ma dilin dawladda dishay waxaa dishay xukuumadda xasan cali khayre baa dishay iyo maxamed cabdullaahi farmaajo meel kale loogama imaan war waa sheegayna ilaahay baa nagu ogo dadkan ka maqlaanaw meesha ma aanu joogin waa war saxiixa waa la soo raadiyo hal qof xataa dadkii loo soo xiray meel uu maray lama arag maxkamad lama saarin in meel la geeyo lama yaqaan midda kale dawladda farmaajo wax allaaliyo wixii dambi lagu soo xiray maxay u qarisaa reediyo muqdisho muxuu qabanayaa wasaaradda warfaafintu maxaa loogu baxshay warfaafin dadka inay dibad iyo daakhilba gaarsiiso waxa meesha ka dhaca maxaa loo qarinaya dawladdu ma al-shabaab bay la shaqaysaa war balkaalaya annaga balaayo aragnee say wax u qaldan yihin rag dhifa la garay oo ku jiro aan la ogeyn oo al-shabaab la shaqeeya waa la gartay warfaafintii dhammayd ee waddanka Soomaaliya 18 gobol baa qarinaysa wixii dhibaatadii shacabka ku dhacaysay bay qarinaysaa waxaan leeyahay waalidka Soomaaliyeed ee caruuraha dhalay kuwa reer miyiga iyo kuwa reer tuulaadka iyo lokeeshimadu waa dulman yihiin waxba garan mayaan xoolahay la joogaan oo kale wey beertay faganayaan oo kale wey waa beertay qodanayaan oo kale waxay ogyihiin male hoostoodiiba carruurtii laga dhamaysta qaarna shabaab baa qaata qaarna kuwa kalyaha ka gurtaa qaata finish gobolka banaadir inta xukumo baydhabo ka soo rogan oo balweyne ka soo rogan oo ilaa iyo halkaa iyo jilib ka soo rogan oo ilaa iyo marka soo mar ilaa cadale ilaa jawhar ilaa xamar eber caruur kuma harin waa koonfur oo dhan kismaayaa laga soo daldalaa oo marka la keenaa marka warshad baa ku taal weyn markay ku taallaa xamar 3 meelood bay ku taallaa gobol ayna ku olma leh haweenka Soomaaliyeed waxa laaliyo wixii islaama oo shahaadada yaqaan oo ilaahay u sujuuda oo tukadow erey kilibkaygaas gaarsiiya haweenka Soomaaliyeed rag anigu la hadli maayo kursi ku waajo majnuun kursi ku noqday oo marna carab ku ordahayo lacag u doonanayo marna baarlamaan iyo gobolada iyo magaalada weyn baa fadhiya qaranka baa fadhiya kuwaas hadalkoodii waa dhammaaday wixii ilaahay gadaal ka hagaajiya maahane rag aan la hadlaya meeshaan ma joogo booliskii baa caruurtii gabay waxaa gabay gobornarkii baa gabay waxaa gabay waalidkood baa gabay saasaa hortooda looga guranaya cunug walba cidlaa laga qaadanaya ilaa iyo 100 oo cunug
dhowr boqol oo kun oo cunug baa ilaa 2007kii soomaaliya laga qashay waa la qashay inta tahriibtay oo carabuhu qasheen oo itaaliya iyo carab iyo hindi iyo hoogiyaba iyo griig iyo baliya baas ay qasheen iskaba dhaaf kuwaas waa tiro dhaafeen kuwa lamaba tirin oo xisaabta kuma jiraan gudaha dalka inta laga xaday meel dhaweed naag inta la qabtay la soo daayay oo maxaa la dhahayay hana abukar lug bay ku leedahay ama qariya ama qarinina waa ogahay inaad qabiil u qariseen waa ogahay xildhibaan inay soo daayeen xildhibaano waa xildhibaanada baarlamaanka ku jira oo kaliya caruurta ka gurta weeye ragga soo daayay hana abukar waa ku lug leedahay shaki weyn baa ku jira waa ku lug leedahay 6 sano ka hor baan fiirsanaya hana abukar barnaamijkeeda 2016kii baan bilaabay tos baan ula socday hana abukar barnaamijkeeda garowe waa lagu qabtay hadda ka hor 7 cunug iyadoo daadaynaysa lagu qabtay mise boosaasay ahayd boosaasiya garowe mid ay ahayd baan maqaan waa lagu qabtay lacag bay dhiibtay hay-addii ay u shaqayso oo saldhigeedu uu yahay Addis Ababa iyo Kenya labadaba fadhida baa lacag dhiibtay lacagaan caadi ahayn baa farole la siiyey ciidankiisa uu amro sii daayuu jiro qabiil baa loogu hiliyey maanta hana abukar waa naagaha ka dhameeyey caruurta dadka reer ma kala fudho reer kala furka reerka kaliya kuma eka caruurta iyo waalidkay isku diraysa kaliya kuma eka naagtaan waa naagta kaliyaha gabdha xarunta xalane lug bay ku leedahay way gashaa CID iyaduna kama warqabto CID waa inay xafiis ka furataa xalane CID waa mas hadday ka furan weydo waa in mataqaana dagaal lagu qaado dadka degan muxuu ahayto meesha la yiraahdo xalane warma run baa sheegaa mise been run baa sheegaya okay waxa weeye marka waxa loo dhimanayo iyo waxa loo nool yahay maxay tahay yaa la xukumayaa bal hargeysa maxay xukumaysaa caruurta waa laga dhameeyey bal garowe maxay xukumaysaa caruurta waa laga dhameeyey bal dhowsamare maxay xukumaysaa caruurta waa laga dhameeyey bal beledweyn maxay xukumaysaa caruurta waa laga dhameeyey bal muqdishadii intaasoo dhan 18 gobol wakiilka ka ahayd oo mas-uuliyaddii dowladda dhan joogtay oo mas-uuliyaddii ciidanka dhan joogay oo meeshii madaxa ahaydoo Soomaaliya laga xukumay ahayd oon afgooye iyo balcad midna gaari karin oo xamar ku eg circle xamar ku jidha hadday xataa sirgalkeeda ku jidho meel la yay gaarine ay caruurta ay badbaadin lahayd oo xamar kaliya amnigiisa ay dowladdu ka adkaan lahayd forever ayadaa noo taagnaan lahayd dowlad kaleba ma dhisaneen caruurtii hoostooday ka dhammaata waxaan leeyahay marka haweenka Soomaaliyeed caruurtiina ilaashada naag walayba cunugaaga gacanta ku hayso haddaa suuqa aadaysi gacanta ku qaado hadduu guriga kula joogo albaabka ku xiraado albaab gurigaas ku hadduusan lahayn daydka u fariiso albaabka hore fariiso hawsha aad qabsanayso albaabka hore ku qabso caruurtiina xafita caruurta waa loo soo galay hana abukar iyo gruubkeedoo kale u soo galay waxba hana abukar yaan laga dhigin ceebka saliin hama abukar ilaa iyo 2007 bay bilowda inay Soomaaliya iyo Gaarisa iyo Ethiopia iyo maxay Djibouti caruurta ka soo daldasho Soomaalida kalena cidlayba u haydo gabdhaha u joogo caruurta uga hayaamin jiray oo Nairobi u gen jiray spare part haddana makiinadaha la keenay marka badda yaallaba mashiin la keenay freezer la keenay halkaasaa lagu daldalaa waa laga soo guuro xamar baa laga dhis markaaba laga dhis beledweyn baa laga dhis sabree baa laga dhis kalkacyo waa ka dhisantaa warshad meel ayna ka dhisnayn mari boorarka akhriya waxa boorarka ku qoran samafalka iyo maxaan ku yidhi NGO-ga bal gobol ayna ka dhisnayn eega waa meesha caruurta kaliyahooda lagu gurtaa iyo beerkooda iyo wadnahooda iyo maxaa ahayta madaxooda iyo indhahooda iyo maskaxda xataa waa kala baxaa haddiina isu nahayn haddiina dhiig lahayn haddiina damiir lahayn haddiina danqanayn haddaad diinteeda iyo sunnadeenni ka tagteen maxaan idiin samayn karaa anugu meeqa sanaan information idin siinaa sanad iyo bar waa dhantaa intaa information idin siinaa wax badan baan ogaha dad caddaana oo mataqaanaa communityyaal ah oo social ah baan ku xirrahay newska dhan dadkaasaan ka helaa bal ka warrama haddaana Soomaaliba news ka helin yaa hay-adaha gudaha idinku jiro idin baabi'inahaya oo halkaan joogaa baa noo warraman communitygooda ku jiraa oo maalin walba markaanu shirayno informationada la soo gudbinayo aanu ka soo qaadana Soomaali qurun leeyay waligiin iyo allahinna ha israacinina cuqubadii dhulka iyo dadkuna ha idinku dhac
halkaa waxaan uga gudbahayaa barnaamijka carruurta barnaamijka kale oo aan rabo inaan taabtaabto kana hadlo xaqna waajiba muqadisa waxa weeye halganka gumaadka iyo barakicinta iyo dilka iyo qafaalashada iyo baahida iyo daawo la'aanta iyo nadwaag la'aanta iyo mataqaanaa tol la'aanta ka socota magaalada Gado gobolka Gado gobolka Gado waxa ka socda wax la fiirsan kara ma ummadda Soomaaliyeed dibad iyo daaqilba oo fiirsanaysaana aakhire waa la weydiinaya waana la isku ciqaabaya waana lagu cadaab mudanaya dadka reer Gado waa dad Soomaali ah walaalahayo waa nala dhasheen dhalashadii iyo diintii iyo dalkii wax walba baa naga dhexeeya qof unbaan qofka kale nafta u siibi karin wax kasta oo kale waa nagala dhexeeya xaq waxay noogu leeyihiin inaanu xoog iyo xoolaba aanu maaragtay difaacno u gurmanno feer istaagno taageero ka xumaano dhibaatada ku dhacaysa la barooranno haweeye hal gobol oo weli u tacsiyaynaya reer Gado ma arag hal gobol oo esimadooda iyo waxgaradkooda iyo maamuladoodu ka hadlayaan gobolka Gado waxa ku dhacaya ma arag baydhabo oo Idris leeyihiin kama hadasho Muqdisho kama hadasho Hiiraan kama hadlo Galmudug kama hadlo Puntland waa meesha baabi'inayso madaxdeeda baabi'inaysaba Puntland madaxdeeda baaba ku lug leh oo in Kenya iyo dabadhilifka ay wadato horgalada ay wadato ay weerar ku soo qaadaan shacabkii oo reebaadihii baabi'iyaan oo qaar khafaashaan oo guryaha ka gubaan oo xoolihii mataqaanaa laga baaba'sho xabad lagu baaba'sho Axmed Madoobe iyo gruubkiisa saxaabu jixiimada ah iyo Kenya inay saas inta u gasho dowladdiina ayna ka hadlin anigu ma arag meel dowladda uga hadlayso been sheegi mayo meel ay uga hadlayso afhayeenka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hataa kama hadlin duqa magaaladu kama hadlin qof baarlamaaniya hal nin baa ka hadlay oo daahir jeesow la dho asagana abaal waa uga haysaa ummaddu abaal weyn baa ummaddu uga haysaa hal qof oo kale oo soo hadal qaaday oo dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah anigu ma maqal miidiyadan dhegaystaa veji Kenyaan baaba ka hadlay shacab Kenyaana ka hadlay shacab Kenyaana yiri waxa weeye sida jaadkeenna la joojiyey iyo shacabka reer baadiyaha ah ee reer Gado oo la garaacaya iskuma xira waxaan waa siyaasadna reer baadiya shuqul kuma laha laba dowladood bay u dhaxaysaa reer miirow baa yiri reer miirow niman reer miirow waxa yiri intaas oo gobol Soomaaliyeedna kama hadlin Somaliland waa dad walaalaheen oo Soomaali ah kama hadlin Djibouti kama hadlin maamulka ka jira Soomaali galbeed maamulka ka jira kama hadlin state of Somalia kama hadlin oo xaruntoodu tahay Jigjiga waxaan NFD daadsanoo mataqaanaa awalba la gumaysanayo la bahdilay ma hadlin maxay ka macno tahay marka Soomaaliya hal qabsado shacabkeeduna ha aamusnaado war wax maamulaha suginina shacab u hadla annagu maamulkaba sugi mayna darajo maamulka u kala tartamaya ruufyaannimada oo maanta miidyada soo dhigay anigu aan ruufyaaniinta xukumo imaaraad inta baryo ugu tegey Saciid Cabdullaahi Demi inta jaajuusiina madax iga dhig lacagta aad u dhiibaysa aniga ii dhiib janti waalahaygaan ka goosto maxaan ku yidhahdaa imaaraadee nimanka tartanka galahayo adigu aad wadato qarashkooda ii dhiib maamulkooda ii dhiib anigaa Soomaaliya kaaga filan anaa ballan kaa qaaday aniga jawaasiistaydu inaan mataqaanaa ina Farmaajo soo noqon bromis baan kaa qaadaynaa ana wixii qarasha oo dhan ii dhiib
ina cabdirashiid waa nin liituu noqday waxba ma qaban karo anaa ka aktifsan nimeediyada soo dhiga ninkii lalahaa wuxuu fadhiyaa garow hadduu fadhiya markii horena khayr kuma fadhi silacaas hadda uu la wareegayo meel uu dhala taagan yahay reer puntland qabaa waxaa weeye marka halka kan waxaa ka dhacday gobolkaas in loo hiiliyo oo gurmad yaa mu'miniin loo fidiyo xaq ilaahay buu u leeyahay xaq bay noogu yeesheen waxa weeye nin walba wuxuu haaban karo iyo wuxuu gaari karo iyo wuxuu qaban karo inuu qabto gobollada aan la qaybsan maanta xanuunka iyo dhibta iyo jaa'ifada ku soo dhacday gobolka gado gobollada soomaaliyeed oo aan la qaybsan hadday tahay mataqaan muqdisho hadday baydhabo tahay hadday jawhar tahay iyo beledweyne hadda ismada iyo shacabka aanu ka hadlaya maamulada qurunka ahoo meelaha gaaladu gelgeysatay ka hadlimayo hadday tahay gobolka mataqaanaa iikeen gobolka dhexe iikeen galmudug hadday puntland tahay hadday somaliland tahay hadday jabuuti tahay hadday somali state somali galbeed state tahay wax ka hadlay ma jiraan intaasna soomaali waa dadka la baabi'inayana waa soomaali dadkii reer baadiyaha waa dhammaaday marka haddaad u quuri weydeen ilaahay ha idiin naxariisto oo ilaahay cadowga ha idinka dulqaado hiil iyo hoo kale idinma tari karnee waa idin tacsiyaynaynaa bay intaasoo soomaaliya shacaba u quuri waayeen war anigu shacabka iyo odamada waxaan ka hadlaya iyo dadka waxgaradka isin la hadlimayo isin waa kiraysan yah culummo maba jidho waa wahaabiyo hal wahaab ee aan ahayn oo culummadaha kuma jiro madaxtooyada midka fadhiyo la dhaho cali wajiis waa wahaabi markaasaa wax laga dhegaysanayaayo uu leeyahay halka kan baan diinka akrinaya muxuu yahay diinta akrinaysaa khawaarij weeye waa diinta wahaabiyada sunnana shuqul kuma leh waxa dadka dhammaynaya culummada ka mid ah wahaabiyiinta okay marka gobolka gado waxaan u malaynayaa iyaga malaha wahaabiyada ku yaro haddaan wahaabiyadu ku yarayn maba harjadeenba maba jahaadeenba ya dowladdu waxaan dowladda ku amraynaa oo dowladda ka codsanaynaa oo ku amraynaa oo ka tuugsanaynaa oo ka baryaynaa oo ku boorinaynaa ya oo ku waaninaynaa waa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo si degdega inuu ciidan u geeyo ciidan in lagu daro waad u jeedeen xalay wixii lugamayn hore lagu soo qaaday weerar baa lagu soo qaaday indhakori iyo gruub uu wato oo aaran shaydaan bay la baxeen qolada aaranjan bay la baxeen reer puntland aaran shaydaankii axmed madoobe yaa weerar ku soo qaaday dhulkaa loo dhigo waa la jabiyey hal meel ah oo mataqaanaa u dhaxaysa ceel waaq iyo meesha la dhaho buulaxaawo ateenna ka taagnayd oo hormuud leedahay baa la rabay in laga gooyo gobolka si uu dhagala'aan indhala'aan u noqdo baa la rabay in laga gooyo weerar baa lagu soo qaaday indhakori iyo gruubkiisi baa ku soo qaaday nacladu ku dhacday iyo maxaa la dhahaa kii jiiska ahayo maxaa cabaas la dhahay oo shaydaanka ah markii la jabiyey oo la baacsaday yaa teknikadii waxa soo gashay kenya hoobiyayaal bay saa u soo daadis ilaahay subxaanahu watacaala waa caadilo ilaahay baana ilaashee kumaba ridinba hoobiyaashii meeshii mataqaanta nadwadku ka taagnaa kuma dhicin dadka saa loola dagaalayo cirka iyo dhulkaba lagala dagaalayo marna diyaaradu duqaynaya marna taangiyadu marna indhakori iyo axmed madoobe shayaadiintuu watay in laga aamusnaado ma fiicna ciidamada yadii markaa gada joogay oo buulaxaawa weliba joogay ee haram cad iyo gorgor difaac bay ku dhifteen oo kenyadiina waa ka adkaadeen jawaasiistii axmed madoobena waa ka adkaadeen nebigay u qoreen maxay u baahan yihiin halkaas inaanu garab istaagno inaanu feer istaagno naf iyo maalba in loo geeyo wey maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leenahay waa inaad ciidan degdega dirtaa 4 bilood oo ku horay kasbo gada inaad difaacdo waa ku dooranaynaa markaas lacag cid ku soo baxaysaa meeshaan ma jirto soomaalidii waa ilbax waagii jaahilka lahaa maaha qolo walba waa ilbaxday nimanka wax soo dooranahayaa saasay facebookga ugu jiraan fartaysaa ku hayaan saasay ku hayaan facebook bay ku jiraan wax allaaliyo wixii khabaar dhacaya bay la socdaan waa ilbaxeen dadkii marka lacagtii qabiilka ku duuduubnayd ee dadka lagu degi jiray ee dadka lagu khayaani jiray waa dhammaatay maanta taas waa dhammaatay
dan guud oo soomaaliyeed baa maanta ka ifbaxaysa soomaaliya qola rabtaa ma jidho nin lacag la ordahayo imaaraad jaajuus u ah cid rabtaa ma jidho ciyaalkii baa nacay oo haweenkii baa nacay odayaashii baa nacay oo duqowdii baa nacday oo dhallinyaradii baa nacday oo ilaahay baa nacay cid rabtaa ma jidho waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo 4 bilood baa ku hadhay inaad soo noqon iyo inaad soo noqonayna qaalow basharkaa og rabbiga caalamiinkaa og annagu ma ogin laakiin annagu waa jecelnaha inaad soo noqoto waxaanu ku jecelnaha in yar oo soomaalinimo ah oo wadaninimo ah oo dabacsanaan ah oo deganaan ah oo dad jacayl ah baan kaa dareenna oon kugu aragna ood kasbatay inaanu kugu taageerno inaad soo noqoto laakiin maanta waxaan ku kala xiriir furanaynaa oo intayadii ku taageeri jidhay ee qaaq facebooka iyo youtubeka ka lahayd dibad iyo daakhilba maanta shardiga inoo yaal waxa weeye gado inaad ciidan difaaca geyso oo saadkoodii wata oo dadka barakacay aad u gurmato oo diyaarado raashin ugu daldasho oo daawo ugu daldasho oo dhar ugu daldasho naftuba ha kaa dhacdee ogoobay marbay nolosha qaarkeed geeridu dhaantaa maxamed cabdullaahi farmaajow marbay nolosha qaarkeed geeridu dhaantaa waddankan adaa xukuma 5tii soomaaliya 3 waa tii la qaatay 2 kale adaa xukuma hargeysa kan dhibaatada ugu dhimanaya adaa xukuma waa go'onayda somaliland kuma shaqaynayso hooyo gabadhayda qabo lahada inaan leef ku jiro ma garatay waxa weeye markaa qof walba mas-uuliyaddiisa waa la weydiinayaa qof mas-uuliyaddiisa lagu dhaafayaa ma jiro mas-uuliyadda maanta ummadda kaa saaran maxamed cabdullaahi farmaajow waxa weeye inaad maaragtay qof qolo walba ama gobol kastoo dhibaata ku dhacdo inaad meeshaada uga gurmato weye waa inaad meeshaada uga gurmato gobol kastoo dhibaata ku dhacdo waa inaad afka ha ka hadlina adinka ka hadasho nin af ka hadlay waa baqay nin af ka hadlay waa baqay maxaad xiirinaysaayoo kuu dhiman baddi waa lagugu haystaa gobol walba waa lala wareegi gobolladii gacantaada waa ka sii baxeen somalilan iyo puntland horey uga baxeen galmudug hadday ku darmatay oo imaaraad baa iyadana la wareegaysa soomaali koonfur maxaa la dhaafo koonfur soomaaliya gobolka baydhabo baay iyo bakool iyo waa raaceen oo galmudug bay raaceen oo waa imaaraad iyaguna haye yaa kuu soo haray jubbaland gadaad ka haysataa intii kale waa go'da yaad ku mitidaysaa sool iyo sanaag iyo cayn iyo gobolka gado iyo xamar qaarkeed shacabka xamar qaarka ya intaasaa hadda gacantaada ku jirta intii kale imaaraad baa raggii haystay la aadeen okay gobolka gado keliya haddaad ku mintita xataa caaqibaad leeda sababtoo ah isaga waa gobol dhulkii la qaadan karo laakiin puntland iyo jubbaland bad baa noo dhexaysa dhulka lama rujinaayo mashruucyo unbay ka wataan dekadaha ee mataqaana kasii munafacaadsanayaan waa loogu tegi karaa waa meel laga dabategi karo maca jubbaland waa meel laga dabategi karo laakiin gobolka gado gobolka jubbaland oo dhanba lagama dabategi karo waa dhul ciidan baa qabsanaya kamana kicin kadib ciidanku markuu inta qabsado ciidanka cadowga ah u qabsado imisaa lagu dagaalay ya ogaday imisaa lagu dagaalay 80 sano 90 sano rag nooga dhammaaday wax walba samayna waa laga kicin waayo markii horeba gacanta ku dhigto ku fariisan gobolka jubbooyinka maxamed cabdullaahi farmaajo maanta gacantaada ayuu ka bixi maanta adaa mas-uuliyadda haysta rag hore buu ku qornaa oo la yiri ciidanka kenya waxaa soo geliyey nin la oran jiray muxuu ahaa magaciisi muxuu ahaa gandi iyo ninka la yiraahdo cabdiwali caligaas iyo ninka la yiraahdo iikeen cumar cabdirashiid oo weliba waxaa la yeeshay sheekh shariif xilligiisii shariif inta diiday baa gaas baawar isticmaalay fiita ah hal nin oo dembigu galay aan qarin hayo waddanka iyo dalka iyo diinta ka galay ma jiro cabdiwali caligaas iyo ina maxaa ahayd ina farmaajo iyo xasan sheekh iyo ina cabdishakuur iyo axmed madoobe iyo war aniga ima kala sokeeyaan war waa dameerow labadaa dhagood bay yihiin kulli waa ila dhasheen walaalahay weeye magaca soomaaliyeed baan sheeganaa xil bay noo hayeen mas-uuliyad bay noo hayeen dal iyo diinba
waana dayaceen dee qarin mayno waa sheegaynaa meeshay doonta ha la gasho waxa weeye marka nimankii gobolkaa kuwaasaa ku magacaaban maxamed cabdullaahi farmaajo sheekadu ku socotaa kuwaasaa ku magacaaban inay ciidan bilaa sharci ah ee military force ee kenya ay bilaa sharci ku soo geliyeen haddana wax dadka gumaadaya oo dadka baabi'inaya oo xoolaha laynaya oo gobolka inay qaataan rabaan waa raggaasu waa ciidankii raggaasu sharci darrada ku soo geliyey oo u oggolaaday waa xilligii sheekh shariif shaydaan shariif xilligiisi wey okay waxaa loo baahan yahay marka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa loo baahan yahay gobol kasta oo masiiba ka soo dhacdo culayska inaad saadho ciidan maanta waa haysataa dabaabaad iyo diyaarado iyo taangiyaal iyo maba haysatid kuwaas laguguma eedahayo laakiin intaad haysato ku hagarbax inta aad hayso ku hagarbax diib ciidan dir complet lisaadkooda u yaa dir gurma dir raashin dir daawo dir dhar dir barkacyaasha u gurmo maanta reer goorma haddaa u gurman weydid wallaahi bilaahi tallaahi inaanan maxaan ku idhahdaa february bisha 8 aanaa ku dooranayn ma ku dooranayn in allaaliya inta doorashada maamulaysana qandhuufaan ku jabinaynaa waxaan leenahay no ina farmaajo no kuwa toos noo xaraashaya doorta markay maanta gadow difaaci waayo haw dhiman october november december january 4 bilood oo aad haysato gobolka gado ciidanka ku wareeji bu'aale qabo waryaa maxaad ka baqaysaa war bu'aale qabo hadda ka horna waa kuula hadlayo si xunoo kulul baan kuula hadlo ilaahay baa laga baqaa aadni lagama baqo madaxweynaha dhaliishiisa waa sheegaynaa wanaaggiisana waa sheegaynaa waa garab taagannahay waa taageersannahay waa jecelnahay waddaninimaan isugu tiirinaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo gurmo macnaha gadaad xoolo geysay iyo reerahoodii u gurmaday yaan lagu dhihin booskii maxamed maxaan ku idhaahdaaye siyaad barre ama gal ama niyow isaga qulqul meesha waxyaallaa ma jiraan okay barnaamij waxaan marka intaasaan uga baxayaa barnaamijka gado iyo gurmadka madaxweynahayaga waxaan ka codsanaya gurmad degdega inuu u diro gobolka gado iyo jubbooyinkii waa baabi'een yaad xukumaysaa shacab baa dad la xukumaa shacab geedaha iyo lama xukumaa saraha iyo guryaha dhisan iyo beeraha lama xukumo dad baa la xukumaa dadkii waa cirib tirmaaya carruurtiina keliya baa lagala guranaya waanad u jeedda hawshu waa kugu badanta waa ogahay problem iyo madax faar waad qabtaa laakiin karti iyo xaniyo dugso iyo wadaninimo dugsaan ku leeyahay madaxweyne weligiin baa soo gelinina xaaraan waxaan ka adkaasaan uga baxahayaa waxaan ka hadlayaa garowe puntland garoonka garowe hooga ka taagan ila dhegaysta garoonka diyaaradaha garowe genaraal maxamed abshir hamaan oo ay la wareegtay shirkad baa la wareegtay shirkad khatar oo puntland khatar ku ah gebigeedaba puntland khatar ku ah oo uu leeyahay ama uu leeyahay nin la yidhaahdo eric bares baa wata mulkiilaha eric bares mulkiilaha black water waa kambani ama guruub canada iska soo cayrisay muddo wuxuu jooga america waa iska soo cayrisay england buu soo maray waa iska soo cayrisay dubai buu barogsinka ku xabaashay dubai buu degan yahay halkaasoo afrikada ka dagaa carabaha ka dagaa meel walba gacanta la galaa reer dubai baa mataqaana magangelyo siiyey waa bilaa sharci caalamka sharci qaban karaa ma jiro
وبلاك ليست بكتيرة بلاك ووتر بالله ونمانكي عرب سورغي وعرب سور دميي إلا 91 هذانا waxay u soo dhigteen geeska Afrika baabax inay ka dhigaan waa baax maxaan ku iraada Soomaaliya waa Ethiopia waa Djibouti waa Eritrea waa Suudaan waa Libiya waa Yemen sideeda wadan inay cunaan baabalag lista halka u fadhiya imaaraad baan ku shaqaysanaysa oo maaragtay his qabale waxay la wareegeen imaaraad baana ku shaqaysanaysa imaaraad bayna u shaqeeyaa mulkiilaha black water Eric Barres shirkadda ayaa lagu magacaabaa Fronler baa lagu magacaabaa Fronler Service Group baa la yiraahdaa Eric baa wakiilka uu black water waxayna tahay Hong Kong bay la baxda ama lagu magacaaba waa magac bedelan waa been magaca oo bila sharciya oo iyadu ay boorka ku qoratay laakiin aan jirin iyadoo fulisa arrimaha adeega kana hesha qandaraasyada wasaaradda difaaca Maraykanka ayay ka heshaa adeegyada shirkadda waxaa ku diiwaan gashan shakhsiyaad Shiinays ah iyo kuwa kale balse Eric oo isqarinaya baa leh Eric Dean Brains waa qandaraasle ka tirsanaan jiray CIA-da Maraykanka buu ka tirsanaan jiray ninkaas Eric la yiraahdo oo badanaa la shaqaysta dowladaha fashilmay oon wax sharciya ka jirin dalalkooda iyo ururada aan la aqoonsanayn ee meel aan ka diiwaan gashanayn shirkadaas iyo ninkaas erega waxaa wata oo horboodaya Khadar Faroole baana la wata hawsha Eric shirkadan sheegaysa garoonka ballaarinaysa waxay sheeganaysaa oo wiilkan hadda ina Faroolaha oo Khadar la dhaha u horboodaya oo ay leeyihiin waxaan ballaarinaynaa oo dhisaynaa garoonka kana dhigaynaa mid caalamiya ama casriyaysan balse xaqiiqdu waa ka duwan tahay intaas waana mid macdan gurasho manaajirta wax badan oo ay garoonka iyo guud ahaan Puntland ay ku soo kordhinayso ma jirto wax ay ka qaada maahane waxay garoonka iyo Puntland ku soo kordhinayso ma jirto sidii dekada loo yiri 30 sano noo saxiixa waa dhisaynaaye
dekada boosaasood oo weli barti taagan oo weliba ciidu awday baa garoonka garowana noqonahayaa aaway reer Puntland aaway dhagaalaayin dhalay Puntland shacabka Puntland oo dhagaalaayin dhalay indha iyo dhagama qabaan waa lo iyo ida daaqahaya maxaa yeelay 4 sano lagu hayaa war wadankeena difaacda war imaaraad iska ciirsha war balaag water iska ciirsha war hay'adaha shacabka ku filan shacabka looma baahna ciidan iyo dawlad shacabka ku filan ismada ku filan odayaasha ma taqaana siyaasiyiinta waaweyn baa ku filan ciidanka ku filan dhalinyarada ku filan qom walba isaga gobolkiisa difaacda gobolkiina sii baca oo soo baca oo qabyaalad idama la kansar idinku noqota qabyaalad bay ku waasheen ay kasto tuuga qabyaalad bay ugu yeelanayaan wadankeena gacantoodu ka bax reer Puntland waa dadka u liita Soomaaliya qabyaalada baabiisiya faaq aan waxba ahayn oo aan geedkaas gaarayn haddii la cayriyo gurigayga albaabkiisa ma gaarahayo waxa faanka iyo bakbakda iyo ababa Puntland bala iska dhigaan wax aad tihiin male waa la soo ogaaday idinka u liita dad xagga qadiyadda xagga Soomaalinimada xagga wadaninimada xagga mataqaana shakhsi ahaanta kulli reer Puntland baa u liita sababtoo ah gobolkoodii baa one by one loola wareegay shirkaddan dhameeyo khatarta shirkaddan ay u leedahay Puntland ayaa lagu soo koobi karaa qodobadan hoos socda waxay guran doontaa socialistka silasokosh waxa weeye nooc macdamaha ka mid ah macdantan nooca ugu qaalisan ee weliba gobolka nugaal ku jidha ilaa maxaan ku iraahdaayay meesha buuhoodle u dhow buuhoodle ilaa ay solishoska ku jira macnaha macdanta ku jidha you can't match wax la soo koobi kara ma aha solishoskaas la'aan ah macdan badan dhulka miyiga nugaal laga guran doono ma jirto waxay ugu bedelayso Puntland nimcadaas iyo macdanta ay guranayso waxay Puntland ugu bedelaysaa ma jiraan innaba hal ekaate waa black water waa mafia brigata rose macdantaas ay qaadanayso oo dhan ka ahayn baalusha oo aan ka ahayn laaluushka yar oo loo tuurahayo reer faroole ama qadar faroole reer faroole maaha qadar faroole oo reer faroole sam waay faroole isaga qadar dhaaway oo horgalka ah kambanigaas black list oo ku soo xiray garoonka Garowe inuu la wareego iyo reservaha u dhow oo dhan sida garoonka aadan cadde xasan sheekh intii u dhoweyd oo dhan uu u dhistay oo uu ka dhistay wax isagiyo faamiligiisu leeyihiin baa la rabaa garoonka Garowena inay reer faroole iyagu waxay leeyihiin sida xasan sheekh bay ka koobi gareeyeen inay ka dhistaan oo black list u dhiibaan oo wadanku halis galo oo diintu halis gasho oo ummaddu halis gasho saasay u dan leeyihiin waa in laga hortagaa marka wixii dhiig lahu ka cadhe awal baan reer Puntland wax dhiig lagu arag reer mudug baa difaaci jiray reer muglina assassination baa raggoodii lagu dhameeyo maata hadhay meesha cid kaloo difaacaysana Puntland ma jiro anaa runta idiin sheegaa nimankii difaaci jiray mudug waxay ka dhasheen Puntland nimankii difaaci jiray mudug bay ka dhasheen mudugna raggeedii 12 sano la dhameynayo xabadkii u dambeeyey taraad baa la dilo wuxuu ahaa odagii dabaka riix miyay yahay dhammaan shaqada ay qabtaan shirkadaha yaryar ee reer horgalla ka ah reer baa horgalla ka ah shirkadaha Puntland ay leeyihiin ee garoonka
howlgalla oo ay la wareegayso garoonkana way la garan howlgallada garoonka oo dhan iyo shaqada garoonka oo dhan wixii soo gala wixii dibad ka yimaada wixii guda ka jooga wax allaaliya wixii garoonka maamul iyo mataqaana hawl uu qaban jiray shirkadda Black Water baa la wareegaysa qadar faroole baana mas'uulka ah oo wata wuxuu la warwareegayaa oo ismadii kula wareegaya reer Nugaaleed in loogu saxiixo garoonka iyo agagaarkiisa ka bacdina sidii garoonka Muqdisho uu gacanteena ka baxo waxaa meesha ku lumahaya oo ku baaba'aya sumcadda Puntland oo ay ceeb ku tahay maadaama ay dhisayso xayndaab xalane oo kala ah oo halkaa Black Water xarun ay uga dhigato gobolka Puntland oo la dejin doono hay-adahaas xalana jooga oo kale iyo ajaanibka Puntland jooga iyo kuwa imaan doona oo shaqo kastaba ha u yimaadeene xayndaabba aeroboorkaas garowe looga dhisahayaa ee genaraal maxamed abshir hamaan sida xalane baa laga dhigahayaa eriyadaas garowana waa caasimadda ama magaalo madaxda gobolka Puntland mar haddii Black List iyo muxuu ahaayee gruubka xalana fadhiya ee Black List madax u yahay Black bahalkii Iken Water sida xalanoo kale ay garowana noqoto dee wadankii in lala wareegiyo shacbow ogaada haddaad wax ka qaban kadhaan haddaad mudaharaadi kadhaan haddaad mataqaanaa qabiil ahaan wax uga qaban kadhaan maamul ma jiro oo maamulku waa nimanka Black Water wata waa nimanka suuqa madow ku gadahaya gobolkaad ogeydeen oo Puntland awal baa waxaa la gaday oo booqashada u yimaada booqashooyinka gaagaaban ee waddanka gudihiisa ah meel ay isugu yimaadaan oo xalan oo kala ah oo ilaa bartamaha ilaa Somaliland inta ka soo rogan xarun inay u noqoto xalan oo kala ah Black Water oo halkaa xarunta labaad ee Soomaaliya ay ka degaan ay noqoto dani baana soo diyaariyey khadar faroole amar baa lagu siiyey inuu arrintaas la fuliyo gruubkan Black Water war anigu run baa sheegaya wax cad oo xaqiiqo ah oo qoran baa sheegaya anigu iskama hadlimayo waddankiina ma joogo qof waddankii joogto adduun iyo aakhiro kale ogba ma ahi 40 sano waddankayga ma arag laakiin ayu news baan la socdaa ayu newska oo CNN-ka newska waxaan la socdaa BBC-da newska waxaan la socdaa Middle East newska waxaan la socdaa Ambay Emirat baa la dhahaa newskeed waa la socdaa kan Soomaaliya kan Kenya kan Ethiopia kan Djibouti kan Faransa kan Turkish inta news aan fiirsada anigu inta news markaan fiirsado qolo walba aan website-kooda galo wixii xaqiiq ah oo aan ka soo qoro oo ka soo diyaariyo baan idiin soo gudbiyaa oo halkaan idinkaga akhriyaa Soomaali cawaaney Soomaali dhagalaay Soomaali indhalaay Soomaali waxba yahay baatiin waxba yahay inaba damiir dhiiglo idinkuma jiro halka uu ku jirana xaniyaad haysaan halka uu ku jirana lugaad haysaan halka uu ku jirana waad mucaaradaa waad caydaan waad dhaleecaysaan waad faquuqdaan dadkaad ka dhex saadhaan I know you Soomaali hoteelada makhaayadaha cuntada goobaha lagu qaxweeyo iyo dhammaan adeegyada magaalada laga helo oo burburahaya oo cagta ay marinayso kambanigaas haddii loo ogolaado aeroboortka Black Water Eric Price uu wato haddii loo ogolaado intaasoo cagtay marayaan magaalada Garowe kuma oolayaan waa idinku celinayaa hoteelada makhaayadaha cuntada goobaha laga qaxweeyo iyo dhammaan adeegyada magaalada laga helo oo burburahaya oo burburi doona haddii la ogolaado kambanigaas ayadoo hayndaabkaas laga heli doono
adeegyo walba oo xaaraan ah oo xaqdi ku dhisan adeegyadii bulshada waxaa loo wareejinayaa kambanigaas blackwater khadar faroole uu ka dhisahayo airbortka baa loo wareejinaya ayaga oo bilaa sharci ah ayaga oo bilaa cashuura ayaga oo intii kale ummadda ku noolayd oo mataqaanaa adeega magaalada mataqaanaa garoowe la baabi'inhayo ay xirmayaan kalos waa xirmayaan ay baarlamaano iyo odayaasha isimada ahow idinka idiin taal aniga ima taal idinkaa ku ilmo korsada ammaanka gobolka puntland oo khatar ku tahay ama ammaanka gobolka puntland khatar bay ku tahay hay-adda la samaynayo ama gruubka la samaynayo maadaama beel ka mid ah kuwa nugaal dega gaar ahaan dhulka garoonka ku dhow ay diidan tahay in la qaato dhulkooda 15 mitir oo dhan walba ah oo ay shirkaddu dalbatay in lagu wareejiyo oo khadar faroolana uu u ololaynayo in ay helaan blackwater kambanigaas airbortka lagu wareejin doono in uu helo dhulka ku wareegsan oo u dhow airbortka waa sida xalano oo kale intii u dhoweyd oo xasan sheekh baa dhistay saraha ka dhisan yukanta match baris kama dhisna waxa iskale isaga iyo caruurtiisoo dhan iyo saddexdiisa naagood iyo walaalihii iyo naagahay qabaan iyo wiilasha maxay tahay adeerada u yahay waxay dhaleen iyo gabdhaha walaalihiisa iyo wiilasha abtiga u yahay waxay dhaleen adigu jifada reer sheekh maxamuud kaliya iskale saraha aad aragteen airbortka muqdisho soo fiiriyo gala youtube-ka waa ku yaalla xamar oo dhan oo saa u soo wiran baa ku taal airbortka inta u dhow ilaa madiina ilaa airbortka intii u dhexaysay ilaa botico xasan sheekh baa dhistay wax allaaliya wixii dhul waddangood ahaa isagaa dhistay wax allaale iyo wixii shacabkii maqnaa ee soomaaliyeed xataa dadkii ku jiray oo isaga qabiilkiisa intuu ka saaray yuu reerkiisa iyo inta u dhow ku wareejiyey oo ay villooyin dabaqyaa ka dhisteen sidii xasan sheekh baa garowga ka bilaabatay reer faroolaana bilaabahayo reer puntlandow indhali idhageli sirdoonka puntland iyo qolada dabagalka dembiyada oo ay khatar ku tahay sababtoo ah qofka garoonka ka soo degaya kan ka baxaya ka qaybta v iyo qaybta v i b dalagu maxaa waaye dalagu xareeyey iyo dalaga lagu xareynayo loona gudbinayo hayndaabkaas wax allaaliya wixii soo gala airbortka ama wixii ka baxaya hayndaabkaas ay gruubku samaystay blackwater ina faroola wakiilka ka yahay iyo airbortka meesha oo vib-ga meesha kalaaska sare ah sirdoonka reer puntland ma geli karaan wax allaaliya wixii lagu qabanayo kama warqamaan wixii lagu qasayo kama warqamaan waxa lagu samaynayo kama warqamaan sababtoo waaba xiranta ma geli karo CID-da iyo booliska iyo ciidanka dad ay iyadu qorteen oo la shaqeeya oo alooshooda u shaqaystayaala oo kambaniga xukumo oo ina qadar faroola soo qoray maahane ma geli karaan ciidanka caadiga ah ee maamulka puntland ma geli karaan hayndaabkaas airbortka marka garoowe waa u dhammaatay oo aysan dabagal ku samayn karin ciidanka amniga iyo ciidanka booliisku ayna dabagal ku samayn karin aynan waxay wado waxa dibadda ka soo degay iyo waxa gudaha ka dhoofaya aynan ka warqabi karin maadaama albaabkaas ay xukunto gruubkan blackwater
loona socon karin lamana socon karaan wax kasta oo aeroboortka ka socda ciidanka CID ama sirta dabagalka sirka ama amniga ama booliiska lalama socon karo aeroboortka waxa ka dhacaya waxa soo geliya waxa wadanka ka baxaya midna lalama socon karo waa meel sayr gala oo xiran oo dekada oo kala ah oo lagu wareejiyay nimankaasuna magaca waa ku soo galeen waa niman imaaraada waay imaaraad baa xukumo wata howlaha uu qabanayo dhan walba shirkaduna waxay khatar iyo ceeb iyo bahdil ku tahay maamulka iyo shacabka iyo jiritaanka iyo qadiyadda iyo qarannimada Puntland ama Soomaaliya qarannimada Soomaaliya ayay ku tahay bahdil iyo baaba iyo ceeb waxa weeye marka anigu ama inaca ama ijeclaada is up to you nin aan abaal uga rabo ma jiro nin aan darajo iyo jago uga raba ma jiro anigu waxa waajib muqaddisa igu ah dalkayga diintayda dadkayga intii karaankaya inaan difaaco wixii khatar ku ana aan sheego ama qaata ama nabcaada dani iyo aaranjaan ilaahay baan uga dacwoonnay wax allaaliya wixii na dhibahaya oo waddanka dhibahaya oo cadow u soo jiidahaya oo jaajuus ah oo mataqaana ummaddii aan wax u tarayn oon daawo dhir mataqaana waddo u dhisayn oo aan cashuurtoodii ku horumarinayn oo waddankii boobahaya horay wuxuu u bixiyey maxamed cabdiweli caligaad dekadii buu saxiixa 30 sano u saxiixa lacagtuu ka qaatay iyo intay ahayd iyo meeshuu geeyey allahu yalcan kama hadli karo anu laakiin in dekedaa 30 sano u saxiixay inay dhisaan oo horumariyaan oo ballaariyaan baan miidiyada ka maqal iyo qoraalada lagu soo qorayo haddana ciid baa awdayo doonyihii baa soo gelila maraakiib iskaba dhaafe doonyihii laashashkii yaryarka ah baa soo gelila dekadaas waa xiranta ina caligaas baa u magacaaban ina caligaas baa laga rabaa maxaa kuu soo baxay waxaa kuu soo baxay maxjarkii xoolaha lagu gadayey dekadii maxaa kambaniga eeneeyo ee shidaal maxaa korontada aeroboorkii boosaaso wax allaaliyo wixii business shacabka reer boosaaso iyo reer Puntland lahaayeen horay baa dani ugu wareejiyey group Soomaali iyo imaaraad isku jira ah oo aaranjaan madax u yahay maxaa la dhahaa maxamuud shide mid caloosha iyo madaxa iyo wadnahaba ilaahay kansar ka geliyey oo maxamuud shide la dhaho ayuu waddankii farta ka saaray iyo ninka la dhaho bangiga haysto ina abgaalow ma garatay masiiba kuwa ay ku dhacday oo bahalla ah oo gaajo ku koray oo fuqri ku koray oo weligood raasar rasuul arag oo xaarka cuni jiray geela digadiisa karsan jiray gaajo intay ka soo mareen rafaad intay ka soo mareen iyo meelihii muhiimka ah u dhiibay cagtay mariyeen Puntland midkii habaarka qabo 25 qof dilay ee bidaha ahaa sanka weynaa iika xoryaalka ahaa iika hebel gallan mid la lahaa isagana wuxuu u dhiibay wasaaradda amniga ma aragteen miyaad aragteen intii dani qabsaday amni Puntland jabhad baa laga aasaasay baran iyo nugaal iyo baran iyo waxaan leeyahay iyo sanaag iyo dhulkaas iyo bari iyo meelahaasoo dhan eesha cali saleymaanku dega iyo kulli jabhadaha yaryar baa laga aasaastay oo la raba in la isaga difaaco dugaagan habar dugaag ee mataqaana aaranjaan jabhadaha socda gobolka mudug baa jabhad lahan inta kale macakarkaar waa leeyahay mudugna wixii u samayn lahaa jabhad wixii difaaci lahaa wixii hadli lahaa wixii caqli lahaa waxna waa ka carareen oo gobolada iyo xamar iyo Itoobiya iyo jigjiga iyo meelahaasaa la aaday waxna waa maato waxna ma qori karaan waxna ma aqrin karaan maskaxna ma hayaan awalba intii caalayaasha ahayd oo doqomada ahayd bay reebeen nimankii dadka leynayo BS la dhahayay oo imaaraadku isagu Puntland ka samaystay hebel nin la dhaho dabaka riix baa ugu dambeeyay marka gobolkaasu dambuuba muxuu ahaye takas iyo maag baa dani uga reebay Puntland oo uga faqooqay oo wuxuu yiri galmudug ku darsada idinku
waxaana ku dhawaaqay galan baa ku dhawaaqay meediyada isagoo uga dhawaaqayo shaahidtu ana ahaa anaa dhegaystay facebooka la soo dhigay galan buu yiri ku dhawaaq gobolka Puntland adigaan xishoona ku dhawaaqo anigu xoogaa waa baqayahay waxaad tiraahdaa ilaa Burtille ilaa maxaan ku iraahdaa gobolka Puntland oo dhan gobolka mudug oo dhan ilaa Garacad ilaa Jariiban ilaa Burtille ilaa iyo maxaan ku iraahdaa reserve area ilaa Wardheer intaa ha ku darmata galmudug maba rabnaba gobolkaas maba rabayo Puntland uma baahnay dheheen nimanka xoryaalada ah wadanka haysta maxaa hayto Saciid Cabdullaahi Deni iyo Galla labadaa nin baa ila wadanka haystee waxay dheheen gobolka Puntland looma baahna over load buu noqday ha lagu daro annagu marka inaan ku darmano maxaan ku iraahdaa galmudug haddaan reer mudug nahay iyo inaanu dhanka kale ee reer Puntland ku darmano waa isugu kaaya mid awal baana nabad ku haysan awalba gumaad baan ku haysanay Puntland waxaaba laga yaabaa in reer galmudug aynana gumaadin walaalaha iyo na soo dhaweeya noqdaan baa laga yaabaa inaan sharaysanaba maaha sababto haduu Samareeb iyo Garowe labada talisoo ka socdaa baan u dhaxaynaa annagu midna waa midigtayada midna waa bidixdayada tii naruuro iyo walaalnimo iyo mataqaanaa nabad ku helo baanan raacaynaa ee qabiil ku raaci mayno Deni iyo ninka la dhaho Gallan Deni iyo Gallan qabiil ku raaci mayno walaalayaal saasaan idiin sheegayaa barnaamijkayga caawana intaasaan uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkaygaan dhamaysanayay ما هي سرادة سوش عبار بيكسوكتين مثلا